يا إلهي ومليكي أنت تعلم كيف حالي وبما قد حل قلبي من هموم واشتغال فتداركني بلطف منك يا مولى الموالي يا كريم الوجه غثني قبل أن يفنى اصطباري قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي وابتهالي شاهد لي بافتقاري يا سريع أبو حسن أقصد وينيا إنه سيف الفطم أستاذ أقصد خيارته والسلام يا دمان كسوقي بشي برنامجك ومجلس كيني يفدقيني أفراد صدح دي مجلسه روحا كقصو شاكيني الدنيا دو إني بربلا ولاده هاي وحين صو شاكني مركا الدلوين عقلي وعلماء المسلمين تو أي شاكين وأي كغور رمين إن الدنيا دو مركا أي بربلا ولاده هاي إلى أفرد دليل بين صو شاكني أما أفر قاعدو قاعدة كواد waxay كل متغير حادث أما التغير سمة الحدوث قاعدة لبعض soo sheegnay iyaduna waxay ahayd الفقر والاحتياج تصدحادين soo marnayna waxay ahayd العلة التامة مستلزمة لمعلولها ولا يمكن أن يتخلف عنها تأفرادين soo sheegnayna waxay ahayd ee ugu dambeysayna ما ثبت قدمه امتنع عدمه marka caaw waxaan ku soo khulaasayn doonaa insha Allah qodobada horeynu soo marnay saddex daliil oo markaa saynis ah oo aynu ku tilmaamayno markaa in adduunyadu ay bilow leedahay waayo kuwa horeynu soo sheegnay waxay ahaayeen adiladii caqliga ahaa kuwa hadda caawa aan sheegi doonaana insha Allah waxay noqon doonaan kuwii xagga sayniska marka maqsuudka aynu xooga u saarnay in adduunyadu ay bilow leedahay waxa weeye haddii taasi inoo caddaato oo aynu caddayno ama ay sugnaatay in adduunyadu ay bilow leedahay waxa aad iyo aad u fudud oo sahlan in adduunyada cid abuurtay ay jirto marka qofka muslimka ah markasta waxa laga doonayaa inuu ku dadaalo inuu bal xujo iyo daliil u raadiyo u helo in adduunyadu ay bilow leedahay hadda markaad eegto kitaabada muslimiinta ama maxay ahaydeen mutakalimiinta markaad eegto nin walba wax isku dayayaa ama uu ku dadaalayaa wadaad kastaaba inuu xujaj uu u keeno in adduunyadu ay xaadis tahay oo bilow ay leedahay oo aanay qadiimahayn waayo dagaalku adduunku ka taagan yahay mulxidka marka lala doodayay meesha ay ka taagan tahay doodu ama dagaalku halku ka taagan yahay waxa weeye halka uu maxay ahaydey doodu ama dagaalku uu ka taagan yahay waxa weeye adduunyadu bilow miyay leedahay mise ma laha marka mulxidkii wuxuu aaminsan yahay oo isagu uu taagan yahay adduunyadu bilow ma inagii muslimiinta ahayn ama rumaysnayn ilaahayna waxaynu aaminsannahay ama aynu caddaynaynaa oo aynu ku dadaalaynaa adduunyadu inay bilow leedahay sidaas daraaddeed haddii markaa aynu xujada ku oogno oo aynu caddayno in adduunyadu ay bilow leedahay waxa aad u sahlanaanaysa markaa inay jabto doodii maxay ahaydey mulxidku oo markaa maxay ahaydey si fudud ku qanci karo ama si fudud lagu fashilin karo markaa taasaa keenaysa in xoog la saaro waayo ninka mulxidka markasta wuxuu ku doodaya adduunyadu waa qadiim mar haddii qadiim tahayna ooma baahna cid abuurta bas halkaasuu kuusoo istaagaya moogta adiguna waxa lagaa rabaa godkaa inaad ka saarto oo tidhaahdo war maya adduunyadu maxay ahaydey weligeed may jirine bilow bay leedahay daliilkana u daliila si sahlan markaas u qancin karaysa markaynu u nimaadno haddaba caawa qodobadeenna insha allahu saddex qodob baan sheegi doonaa kow oo hadda markaa culimmadu inta badan ay maxay ahaydey u daliishadaan in adduunyada ay bilow leedahay oo saynisa ka koowaad waa waxa la yidhaahdo alinfijaar alcadiim ama big bang ka labaadina waxa weeye atamadud alkowni adduunyadu inay samayso expansion ay samaynayso ka saddexaadna waa thermodynamic xeerka labaad ee markaa maxay ahaydey energy marka saddexdaasi
ayaynu caawa insha allahu tilmaami doonaa. haddaynu ku horeyno alinfijaaru alcadiim ama maxay ahayde big banka asalkiisu waxa uu ka yimi nin la yidhahdo George Gamow oo markaa ahaa maxay ahayde fiisigisyahan asalkiisu ruushiyan yahay laakiin markii dambe uu soo hijrooday Maraykanka oo xaggaa markaa maxay ahayde joogay. marka sodomeeyadii qarnigan ayaa waxa uu isweydiiyey su'aal ah limaada tuujadu alcanaasir elementiskan iyo canaasirtan kiimiyaaga maxaa qaabkan munaasabka ah ee ay u nidaamsan tahay adduunyada looga helay marka ogtihiin oo waxa adduunyada ka jira ilaa 29 element ama 29 qoray oo ka bilaabmaya hydrogen oo iyaduna haysata hal proton iyo hal electron ilaa la soo gaaray marka maxay ahayd uranium la soo gaaray. marka waad garanaysaan qaabkii loo tandiimiyey ama loo nidaamiyey maxay ahayd curiyaasha siday u kala horeeyaan iyo siday isugu xigaan iyo electronada haystaan iyo markii physics-ka wato warqad yar lagu soo qori jiray. marka wuxuu su'aashu keenay ahayd isagu isweydiiyey waa maxay markaa sababtan iyo munaasabadan ay qaabkan u noqdeen. adigu laga yaabo marka muslim tahay inaad tiraahdo ilaahay baa saa u nidaamiyey u abuuray laakiin iyagu su'aal markaa meeshii uu keenay su'aashaas markaa waxay dhalisay inuu u raadiyo xalkaas markaa u raadinay xalkii markaa adigu wuxuu la galay markaynu soo khulaasayno jusaymaadkii awaliga ahaa ee shayga ku koobnaa waxyaabaha ugu yar ee elementigu uu ka samayso marka waxa noqoto electronadii protonadii neutronadii kuwaas isagu markaa uu la galay kadib markaa waxa uu qadaray oo isagu yiri waxa maxay ahaydee istidaamaad dhacaya ama isjiirjiirayaan electronadii protonadii kuwaas ayaa waxyaabahan ay haynaa ay ka dhasheen electronku ka dhashay neutron ka dhashay proton ka dhashay ilaa mudaadaadkooda la gaaraya xataa aragtidaas markaa isagu keenay. kadib aragtidii aad looma sii eegin looma sii fiirsanin waa la iska ilaabay. sababta loo ilaabay waxay ahayd hadda imika marka laga tago hydrogenta iyo heliumta oo inta badan adduunyada laga helo canaasirtan culus sida kaarboonka iyo waxyaabaha ee dhulka laguma sameeyo waxay u baahan yihiin kulayl xad dhaaf ah sidaa daraaddeed waxa lagu soo sameeyaa xidigaha oo maxay ahayd qaraxyadan ka dhex dhacaya iyo falgaladan ka dhex socda xidigaha ayaa markaas sabab ah saas markaa dhulka ay ku soo gaaraan oo dhulka ay kaarboonada iyo waxyaabahan kale ay ku yimaadaan laakiin hydrogenta iyo waxyaabahan iyagu halkan iska yaryaalaan oo mushkilad badan ma laha. marka maadaama uu war waxan aad raadinayso waxa lagu soo sameeyaa xidigaha ee hana wareerinin aragtidii aad looguma sii fiirsanin looma dhaadin cid dambe oo ka daba shaqeyso oo waqti gelisana lama helin ilaa la soo gaaro 1965 marka markii 1965 la soo gaaray ayaa laba nin oo injineer ah Arno Benzias iyo Robert Wilson ayaa waxa ay heleen ishcaacaad ka soo baxaya markaa maxay ahaydee dhulka oo jiha kasta ka imanay marka oo ah kaarbo maqnaadiisan oo meel kasta ka imanay marka way la yaabeen way isweydiiyeen su'aashii iyaguna asalkoodu waxa ahayd oo ku keentay waxa ahayd si kidis abay ku heleen oo aan u qastinin iyagu waxay ka shaqaynayeen shirkad baa la yiraahdo ka shaqeysa markaa isgaarsiinta oo ku taala Mareykanka. marka waxay raadinayeen sababta keenaysa tashwiishkan iyo shucaacan ku furan maxay ahaydee aan la isku maqlin ama maxay ahaydee ku dhex jira marka inay meesha nadiifiyaan oo saafi ka dhigaan bay doonayeen marka marka waxay raadinayeen shucaacan ka imanaya xidigaha samooyinka ka imanaya xidigaha samada ka imanaya radiation ka markaa ka imanaya ayay raadinayeen oo xagga samada iyagu islahaayeen mushkiladan way ka taagantahay ka imanaysaa may filim waxaan wax dhulka joogay iyo wax dhulka yaala inuu yahay markaa arrintii iyagoo sidaa u raadinaya bay waxay heleen markaa
dawdaa mustamir ah oo ka imanaya jiha kasta marka jiha kastuu ka imanaya tushuushka iyo maxay ahaydey sanqadhaa jiha kasta kaga imanaysa oo weliba haddana maxay ahaydey isleeg oo thaabit ah marka arrintaa ay arkeen arrintii isweydiiyeen ayaa waxa ay la xidhiidheen weliba xaraaradeedii iyo kuleylkeediina way qiyaaseen oo mawjadahan imanaya way qiyaaseen maxay ahaydey xaraarada ay leedahay iyagu maadaama wax aqoona aanay u lahayn oo dee fiisigiis yahanna aanay ahayn ayaa waxay la xidhiidheen rag khubara oo fiisigiis yahanna ah raggiiba markaa waxay tuseen nin fiisigiis yahanoo barnaamijka markaa isagoo aad ugu mashquulsanaa oo Robert Dicay la odhan jiray oo isagu markaa jaamacad Maraykanka ku taalla barnaamijkan ka waday isaga iyo koox kale oo markaa ku sameynayay bal raadinayaan aragtidii markaa maxaa ahaydey uu soo sheegay ninka hore aynu soo marnay George Gamow markaa George Gamow isagu wuxuu yidhi oo uu sii tanabay ama uu tilmaamay markaa qaraxaasi uu dhacay in maxay ahaydey microwave uu kaga tegey markaa alkhafiyatu almicrowiya in dhulka uu kaga tegey markaa dabeed waxay raadinayeen bal waxan uu ka tegay ee uu sheegaya qaraxaasi ha la raadiyo iyagoo sidii u raadinaya oo waxba waayey oo waxba heli waayey ayaa warkan loo soo sheegay markaa labada nin soo sheegeen warkaas iyaga war la yaab laba ku noqday way aad iyo aad ula yaabaan ay u qaadan waayaan oo maxaa ahaydey ku noqday mucjiso caadi wixii iyagu intaasoo sannadood ay raadinayeen ee ay daba socdeen ay maxay ahaydey hariya habeen ay raadinayeen ayaa laba aan fiisigiis yahanahayn oo iska injineer ahay ay si sahlan ay ku heleen arrintii way la fugureen oo isla eegeen xaqiiqadeedii bay ogaadeen kadib waxa ay go'aamiyeen in arrintan la daabaco oo maxay ahaydey bal lagu faafiyo majallaadka cilmiga adigu waa la faafiyey Dicay iyo xertiisina waxay sharaxeen markaa waxyaabaha cilmiga ee bal ay koobsanaysa arrintani laakiin labada nin ay hay'adda labada nin bay haayeen labadii nin way faafiyeen iyagu waxay ku heleen markaa jaa'isadii Nobelka ee fiisigiska 1969 maxay ahaydey la bixinayay jaa'isadii bay qaateen iyagaa ku guulaystay raggii muddo raadinayeyna wax ay heleen ma jirto laakiin waa nasiibka raggaa siiyey marka aragtida marka la soo ururiyo maxay tahay marka la isku soo ururiyo waxay ku leeyihiin adduunku wax yar buu ahaa hal mar buu qarxay waxa la yidhaha fardanaa jirtay qaraxaasa marka waxaanu haynaa iminka ay ka samaysmeen electronadan protonadan iyo kuwa kasii raxtaa kuwa arkisku ay ka samaysmeen caalamku waa fidsamayaa maxay ahaydey waana sii qaboobaya xaaladii ugu horreeyey kulaylka xad dhaafka ayaa marka waxyaabahan ka dhashay waxaan markaa markhaatiga ugu weyne u markhaati furay aragtidaa uu noqday iminka marka laisku soo ururiyo maxay ahaydey radiationkan iminka labadaa nin ayn tilmaamay ay heleen ee sida kediska ay ku heleen markaa maadaama uu ahay waxyaabihii Gamow uu sii tilmaamay qaraxa dhacay waxyaabuhu ka tegey ama ishcaacaadkii uu ka tegey ama radiationkii uu ka tegey ee uu sii tilmaamay labadaa ninna ay ugu markhaati fureen taasaa keentay markaa in aad loo rumaysto aragtidan aragtidu maxay tilmaamaysaa markaa aragtidu waxa ay leedahay ana alkawna jaa ama khuliqa min cadam caalamku wuxuu ka yimi wax la'aan macnaha energy ma jirin matter ma jirin time iyo waqti ma jirin makaan ma jirin halkaasay taagan yihin waxay ku leeyihin markaa waxan intaanu qaraxaasi dhicin wax alle iyo wax ka horreeyey ma jiro walaa waqti baan jirin walaa zamaan baan walaa maxay ahayd makaan baan jirin wax alle iyo wax ka horreeyey qaraxaas oo jiray ma jiro sidaas daraaddeed maadaama ilaa dhowr iyo sagaashan ay leeyihin aragtidani waa sax waxay ku leeyihiin maadaama wax ka horreeyey aanay jirin adduunyadu uu ka yimi cadamkaas oo halkaa maxay ahayd uu kasoo uskumo qaraxa uu kasoo askumo qaraxa uu kasoo bilaabmay taas waxay caddayn u tahay markaa in adduunyadani weligeed wax jiray aanay hayn bal inay jirtay iska dhaafeen wixii ka horreeyeyba inuu wax la'aan iyo cadam uu ahaa sidaa daraaddeed maadaama oo wax la'aanta iyo cadamka ay kasoo bilaabmatay adduunyadii waxay leeyihiin waxa ay leedahay
waqti bay leedahay marka ay ku soo bilaabato waqtiga waxay ku qiyaasaan hadda imika ilaa 13 bilyan iyo waxoogaa ay ku qiyaasaan wax 14 bilyan ku dhow waana aragtida marka badankooda ay aaminsan yihiin oo hadda ay aad iyo aad iyo aad ay xoojiyaan aad ay maxay hayday u sharaxaan kuwa muxiyinta laftkooda ku noqotay dhaban ahays ku noqotay marka ilaahay wuu ku abuuri karaa adduunyada qarax iyo wax la midaba laakiin marka aad eegto hal mushkilad baa aniga ii soo yara baxday oo wadaadada qaarna ay tilmaameen in waxaynu aaminsanahay ama muslimiin in badan oo kamid ah aaminsan yihiin caalamkan ilaahay markuu abuurayay kamuu abuurin min cadam wax la'aan kamuu soo abuuray ilaahay wuxuu caalamka ka abuuray maado ka horreysay caalamkan iyo waqti ka horreeyay caalamkan oo aan waqtigan imika aynu hayna aan ahayn sababta ilaahay wuxuu huwa alladii khalaqa as-samaawaati wal arda fi 6 ayaamin thumma istawaa 'ala al-'arsh ilaahay waa allaha dhulka abuuray ee cirka abuuray 6 cishaan ku abuuray kadibna ilaahay waxa uu ka kor noqday carshigiisa aayad kale suuratu hud wa kaana 'arshuhu 'ala al-ma' carshigiisu wuxuu ka sareeyay marka hore maxay biyo marka waxaan haynaa in makhluuqaad ka horreeyay koonkani ay jiraan oo biyahaas ay ka mid ahaayeen oo carshigaasi uu ka mid ahaa xadiiska wuxuu sheegay intaan adduunyada ilaahay abuurin 500 sanadood ka hor qalamka qodoox maxfuudka baa lagu soo qoray maqaadiirta intaan qabla khalqi samaawaat wal ard intaan dhulka iyo la abuurin ba maxay hayday cirka marka waqtiguna sida imika physics yahanadu u tacriifiyaan ba culimadeena muslimiintu u tacriifin jireeno waqtiga waxay ku tacriifiyaan miqdaarul haraka shaygu intuu dhaqaaqo hada tusaalahan inta adigu aad socoto ama cadceedu ay soconayso ama habeenku uu soconaya waqtigu wuxuu ka dhashaa waa socodka harakada iyo dhaqaaqu ka dhashaa waqtigu marka sida harakadu ay u leedahay intihaa iyo dhamaad ayaa waqtigu u leeyahay bay ku leeyihiin culimadu intihaa iyo dhamaad waqtigu xataa wax waligiis soconaya ma ah nagu waynu aaminaynaa in waqtiga adduunyadu la abuuray dee xilli iyo makaan uu ka bilaabmay ama waqti meel uu ka bilaabmay laakiin sidan uu ku leeyahay infijaarul cadiimku ama big bang wuxuu ku leeyahay wax la'aan ba adduunyadana ka timi adduunyada ka hor waqti ma jirin adduunyada ka hor makaan iyo meel ma jirin maadana ma jirin laakiin dee culimada muslimiintu waxay ku leeyihiin adduunyada fi 6 ayaan bay ilaahay ku abuuray 60 cishana ma aha 60 cisho imika aynagu aynu hayno sababtoo ah 60 cisho imika aynu haynaa waxa ay daba socdaan oo ay ka dhalanayaan ilaa waqtigu waa miqdaarul haraka waa harakatu shams socodka cadceedu ay sameynayso ayaa waqtigeenu haynaa oo ka dhalanaya marka haddii cadceedu aanay soconayn waqtigeenu ma maayo marka waqtiguna ma aha wax mutlaq ah waa wax nisbi ah oo imika waqtiga qiyaamaha ama waqtiga maalinta ilaahay maalinta agtiisa intay ka tahay miqdaar ku leedahay ama waqtiga ahlu jannuhu la mid ma aha waqtigeena adduunyada ama waqtiga xataa ka horreeyay inta adduunyada la marka adduunyada ka hor waqtigu jiray maadana way jirtay halka kulli waa laga yaabaa in maxay day khalalkaas wali ku jira infijaarka maadaama aragti tahay wali de baxdgeedii hawsheedii lagu wado laakiin maxaan u soo qaadanay aragtida waxaan u soo qaadanay inaga islaamku iyo islaamku wuxuu qaba adduunka abuurkiisu waa meel buu inoo yaallaa waxaan u soo qaadanay waxa weeye in infijaarkan ama big bang uu cadeynayo adduunyadu inay leedahay bilow inay waqti iyo marxalad ay soo bilaabmatay 13 bilyan iyo waxoogaa lagu qiyaasayo oo aanay ahayn markaa wax qadiima iyaga badankooduna aragtidaas ay maxay hayday aaminsan yihiin kulli waa laga yaabaa khalalkana inay yahay laakiin intaasan yada aan kaga soo baxayna kaga soo gudbay daliilka labaad markaan u nimaadno waa atamadul kawni adduunku waa wax kala fidsamaya ma aha wax constancy oo meel taagan adduunyadani maalin walba way sii maxay hayday baahaysaa ama ay sii fidaysaa marka arrintaa markaa maxaa lagu ogaaday arrintaa waxaa lagu ogaaday oo ay leeyihiin laba aragtiyood baa jiray qarnigaas labaatanaad oo ahaa adduunyadu inay wax taagan tahay iyo inay tahay maxay wax fidsamaya labada aragtiyood marka waxay kala matelayeen dadka mulxidiinta ee aaminsan in adduunyada aan la abuur in adduunyadu ay qadiim tahay ba waxay ku doodi jireen in adduunyadu aanay fidsamayn oo adduunyadu ay tahay thaabit wax taagan inay tahay arrin waxaanay ahayd markaa mashhuur ah oo ka dhex taagan maxay ahaydee Yurub iyo nawaaxigeeda waana xataa sababta keentay Einstein markii mucaadaladiisii nisbiyatul caam uu soo saaray 1915 inuu
xisaabaadkii markuu isku geegeeyay waxa soo baxday in adduunyadu ay fidsamayso maadaama oo uu ka hor yimi aragtidii saa'idka ahayd ama mashhuurka ahayd ee caanka ahayd ee xilligaa taagnayd ayaa waxa uu ku daray xisaabaadkiisii waxa la yidhahdaa thaabitul kown adduunku inuu taagan yahay oo wax fidsamaya aanu ahayn iyadoo sidaa iska tahay ayaa nin haabal la idhaabaa isagu waxa uu maxay haydeen uu ogaaday oo maxay haydeen digiska iyo telescope iyo waxyaabahan uu ku eegayay ayaa waxa uu ogaaday in marka horena aragtidaas way jirtay tamadudkii laakiin isagu waxay u sahashay in maxay haydeen si cilmiyana arrintii ugu caddayn kara markaa maxaa haddaba lagu ogaaday in adduunku uu fidsamayo waxaa lagu ogaaday xidigaha iyo majaraadkan caalamka ku yaala mar kasta inaga way naga sii fogaanayaan inay naga sii fogaanayaanna waxaa lagu ogaaday iftiinka ay soo dirayaan ayaa mar kasta oo ay sii fogaadaan iftiinkay soo dirayaan uu gaabanayaan mar kasta inoo soo dhowaadaan iftiinkay soo dirayaanna adwal mid dheer buu noqonayaa oo mawjadiisu ay dheertay marka ilaysku ama iftiinku maadaama uu mawjad ka kooban yahay mar kasta oo mawjadaasi ay iftiinkeedu maxay ahaydey xidigtan inaga sii fogaato oo inaga ay naga sii durugto mawjadihii iyo iftiinkii ay soo diraysay uu sii gaabanaya uu sii yaraanaya mar kasta oo xidigtan ama majaradani ay inoo dhowdahayna iftiinka ay soo diraysaa ama mawjadda ay soo diraysaa waa mawjad dheer sidaas daraaddeed waxaana tusaale ahaan la mid ah haddaad gaari uu soo socdo codka gaariga marka aad soo socdo mar kasta oo uu gaarigu kuu soo dhowaado codkiisu uu sii dheeraanaya maadaama guuxiisu uu sii weynaanaya maadaama uu kugu soo dhowaanayo laakiin marka gaarigani uu kaa sii socdo ku dhaafo guuxiisii uu yaraanaya uu sii yaraanaya ilaa marka dambe uu libdhaad weydaba wax guuxba aad maqal weydaba tareenkaaga lamid haddii tareenku soo socdo guuxiisu mar kasta uu kuu soo dhowaado guuxiisu uu sii weynaanaya ilaa dhulku dilaaci gaadhaya marka uu maxay ahaydey ku dhaafana guuxiisi uu sii yaraanaya ilaa uu kaa libdho tanna waa sidaas oo kale marka oo xidiguhu mar kasta inoo dhow yihiin iftiinkay soo dirayaan iyo mawjadda iftiinku uu leeyahay waa mawjad weyn waa iftiin weyn mar kasta oo xidigaha iyo majaraadku ay naga sii fogaadaan iftiinka ay soo dirayaan uu sii daciifaya uu sii gaabanaya uu sii yaraanaya taasi marka waxay caddayn u noqotay in xidigahan sii fogaanaya xidigahan iftiinka yar soo diraya inay sii fogaanayaan oo ay naga sii durkayaan oo ay naga sii maxay ahaydey fogaanayaan taasi marka waxay dhalisay fikradda ah in caalamku uu fidsamayo waayo haddii caalamku fidsamaynin xidigahani day nagamay sii fogaadeeni ama halkaasay taagnaanayeen oo iftiin bay soo diri lahaayeen laakiin mar haddaynu arkayna iftiinkiiba inuu sii yaraanayo sii fogaanayo taas waxay caddaynaysaa maxay in caalamkii uu sii kala durkayo oo maxay ahayd uu sii kala baahayo waxaan kala baahaya maxay markaa waxaan kala baahayaa ma aha xidigaha weynaanaya ama cadceeddaa weynaanaysa ama jaraadkaa weynaanaya waa maxalkoodan ay ku jiraanba ayaa weynaanaya waxay tusaalahaan soo qaataan biibilaha haddaad biibilaha marka dhibcooyin aad saarto 3 ama 5 dhibcood aad saarto oo aad biibilihii aad buufiso dhibicdi weynaan mayso laakiin makaankii labada dhibcood u dhaxeeyey unbaa kala fogaanaya markaa cadceeddii ama majaraadkii ama xidigihii masaafadii u dhaxaysay unbaa kala fogaanaysa laakiin macnaheedu maaha xidigtaa weynaanaysa ama cadceeddaa weynaanaysa xidigtu waa inteedii cadceeddu waa inteedii majaraadka kale waa intoodii laakiin waxaan kala durkaya ee kala fogaanaya waxa weeye waa isbayskii iyo masaafadii u dhaxaysay weliba waxay ku leeyihiin masaafada ama kala maxay ahaydey ballaarashadan ama fidsankan uu caalamku fidsamaya ma aha shay cashwaa'i ah bal waa shay la xisaabin karo oo qaanuun baabu leeyahayba qaabka lagu xisaabinaya waxay ku leeyihiin mar kasta oo majaradu ama uu sii kala fido caalamku inaga sii fogaado waa mar kasta oo surcadiisii ay sii badanayso mar kasta oo inaga soo fogaado surcadaas sii badanaysa macnaha socodkiisaa sii badanaya xidigtu ama maxay ahayd majaradu markay inaga fogaato way socodkii ay samaynayso uu sii fara badanaya maalinta inoo soo dhoweyd iyo maalinta inaga fog tahay
waxay socod badan tahay oo ay xarako badan tahay oo ay dhaqaaq badan tahay maalintii naga sii fogaato mar kasta naga sii fogaato uu sii laba laabmayaa uu sii siyaadayaa maxay ahaydee surcadii iyo dhaqaaqii ay samaynaysa ee dhaqaaqu maaha shay iska cashwaayo mar kasta iska soconaya haddaba siduu daliil ugu yahay tamadul kownigani in adduunyadu ay bilow leedahay waxay ku leeyihiin maadaama oo caalamku uu sii fidsamayo oo caalamku uu sii ziyaadayo oo uu sii kala maxay ahaydee durkayo waxaa jirtay maalin intan uu ka yaraa oo shay yar ahaa sidaas daraaddeed maalin kasta uu sii siyaadiyey ilaa halkan maanta aynu taagannahay aynu maxay ahaydee joogno kadibna sidaa uu sii socon doono sidaa uu sii fidsami doono marka waxay taasi caddayn kugu tahay in caalamku intan uu ka yaraa inuu intan ka koobnaa inuu shay intan ka sii yar u ahaa dhaqaaqan iyo socodkan uu samaynayaana maalin uu soo bilaabmay wax socdayna aanu ahayn wax intan leegna aanu ahayn wax halkan taaganna aanu ahayn laakiin intan wax ka yar u ahaa ilaa loo noqdo dee dhibic ama loo noqdo shay aad u yaroo kooban ilaa halkan laga gaadhayo marka taasina waa daliilka labaad ee ay maxay ahayd u daliishadeen in caalamku uu yahay shay bilow leh ee aanu sidan weligii allihii aanu ahayn daliilka saddexaad aan kusoo gabagabeynaa waxa weeye thermodynamic heerka labaad ee markaa maxay ahayd energy macnaheedu waxa weeye saddex heer baa jira kan waa kii labaad markaa kan muxuu sheegaya markaa kani waa istayaab badan baa loo sheegaa qaab badan baa loo qoraa markaynu soo ururino ama aynu tusaalaha dhow ka soo bixino waxay ku leeyihiin tusaale ahaan hadda shay kulul baad haysata shaygaa kulul enerjigiisu wuxuu u gudbayaa shayga qabow haddaba maadaama oo shaygii kululaa inta uu ka dhaqaaqo shaygii qaboobaa uu u gudbayo ilaa labada shay ay noqdaan laba shay oo siman oo isku enerjiya isku tamara ama maxay ahaydey hal marxalad ku wada sugan ayaa marxaladda uu ka soo gudbayo ee kulaylka ee uu u soo gudbayo qabowga ama haddii marxalad kale uu ku jiro ka soo gudbayo ee uu u soo gudbayo maxay marxaladda mana aha wax ku kooban kulaylkii qabowga waa tusaale waana maraaxil badan ayuu geli karaa oo dab ku geli karaa maxay ahayd xaraaradan haynuu geli karaa meelo badan buu markaa qaanuunkan u galaa marka ilaa kuwa soo dhaweeyay marka qaanuunkaasi waxa uu ku tilmaamayaa labadan shay waxay soo gaarayaan xaalad ay yihiin mutasaawiyey laba shay oo siman isku mid ah aan kala badnayn tusaale ahaan oo kale shaygii kululaa kulaylkii buu gudbinayaa shayga qabow buu gudbinayaa ilaa marka dambe labadaa shay ay laba shay oo siman ay noqdaan isku mid ah midna kulaylna aanu ahayn midna qabow ahayn laakiin laba shay oo isku mid ah haddaba haddii caalamku qadiim yahay bay ku leeyihiin oo weligii uu jiri jiray suurtagal may ahaatee inaynu helno waxyaabo ifaya tusaalahaan cadceeddu may ifteen xidiguhu may ifeen maxay ahaydey shay kulul iyo shay qabow lama arkeen muxuu noqon lahaa caalamku shay isku wada mid ah kulaylkii intuu ka soo baxo ayuu shaygii qabowba soo gaari lahaa oo labadaa shay ay simi lahaayeen maadaama weli caalamku xayi uu yahay haddii marxaladda uu gaarina caalamku u dhiman lahaa xaalatu maxay ahaydey meyit ayuu geli lahaa marka oo marka cadceeddii iftiinkeedii la waayo ama kulaylkii la waayo caalamku u istaagi lahaa energy isu gudubto inta shay ka timaado shay kaloo gudubta lama heleen haddaba haddii caalamku uu qadiim yahay bay ku leeyihiin lama heleen noloshan maanta aynu haysano lama heleen enerjigan maanta aynu hayno shay waliba halkiisa ayuu ku maxay ahaydey basbeeli lahaa ama uu ku go'i lahaa waana la sugayaa xaaladdu caalamku gaarayo maxay xaalatulmowt xaalad dhimasho caalamku uu gaari doonaa oo iftiinkan iyo enerjigan wax sidan u taagnaanayo weligii ma aha hadda iminka haddaad soo qaaddo biyo kulul aad soo qaaddo shaah ama shay kulula kulul halkaa aad dhigto bannaanka dee siduu u qaboy room temperature buu gaarayaa marxalad buu gaarayaa marka maxay ahaydey uu qaboobo ama haddaad soo biyo ku qabow ku shubto ama aad ku shubto maxay ahaydey shay qabow shaygii kulula marxalad level bay isugu imanayaan dhexe oo aan maxay ahaydey kulaylkii intuu ka soo dhaqaaqo marxaladda kan meel dhexa isugu imanayaan
markaasaa daraaddeed haddii caalamku uu yahay ku leeyahay shay weligii allihii jiray maanta maba inaan helneenba iftiin iyo enerjigan iyo howlahan meelahan yaallaba ma inaan aragneenba marka oo xaalatul mawt buu geli lahaa caalamka oo dhan maadaama weli xaalatul mawt aanu gelin waxay daliiltaas kugu tahay in caalamku aanu weligii jiri jirin aad tusaale haddaad soo qaado shay kulul ama shaah baad soo qaaday ama biyaad soo qaaday shay kulul halkaasaad dhigtay marka ugu horreeya ee kulaylku uu ka soo baxayo waxaad og tahay in shaahan mar dhowey dabka laga soo qaaday ama mar dhowey maxaa meesha lasoo dhigay laakiin marka uu qaboobo ee uu baraf noqdo maxaad ogaanaysaa in xilli hore dabka laga dhigo xilli hore laga qaaday oo uu qaboobay hadduu imika laga soo qaadi lahaa uu diirimaad buu ahaan lahaa laakiin markaad aragto inuu qabow noqdo waxaad ogaanaysaa in marxalad waqtigan ka horreeyey waqti aad u dheera in dabka laga soo dhigay marka taasi marka waa saasoo kale maadaama oo haddaba dhulkii weli enerjigaas uu ka jiro dhaqdhaqaaqaas uu ka jiro xaalatul mawt aanu gaadhin waxay ku leeyihiin dhulku ma aha shay weligii jiri jirin oo hadduu jiri jiray weligii allihii qadiim uu ahaan lahaa mar horuu xaalatul mawt gaadhi lahaa waxaan tusaalahaan soo qaadano kusoo gabagabaynaa laba tusaale oo iyagu kuwan saynisyahanada ay sheegeen Paul Davies oo ah mulxid fiisigisyahana ayaa wuxuu ku leeyahay caalamku bilkowni maqsuumin maxduud haddii caalamku uu maxay ahaydee kayd xadidan oo nidaamsan uu leeyahay maxay ahaydee xaalad nidaamsanna uu ku jiro nidaamkaana mar walba ay ka dambayso oo ay ku xigto maxay ahaydee idraab ama idraabkaba uu ku xigo nidaam ay wuxuu ku leeyahay marka haddaba aynu eegno xaaladda nidaamsan ee caalamka laba arrin uma dhalanayo horta in caalamku maadaama xaalad nidaamsan uu ku jiro horta uu baabi'i doono u dhiman doono nihayatul madaafka inuu gaari doono maxay xaalatul mawt inuu gaari doono waa qodobka koowaad sababta uu xaalatul madaaf ku gaarayana waxa weeye dee mawtul xaraara kulaylkan maanta caalamka ka jira la waayaya marka kulaylkii mar kasta wuxuu u gudbinayaa enerjigiisii haddii shay qabow uu ku xigo ee qabowgaas marka dambe dhaxal isku imanaya marka maadaama oo caalamku sababta ku dhimanaya ay tahay mawtul xaraara haddana laakiin la joogo xaalatu nidaam waxa la gaari doonaa buu ku leeyahay waqti maxay ahayd xaraaradu ay meesha ka baxdo kadibna caalamku meesha uu ka baxaya qodobka labaad ka soo baxay wuxuu ku leeyahay nidaamsanaantan caalamku hadda aynu arkayno nidaamsan waxa weeye suurtagal maaha inuu noqdo caalamku mawjuudan min al-azal shay weligii jiri jiray haddii sidaa ay tahay oo caalamku shay weligii jiri jiray uu yahay wuxuu gaari lahaa tawaasunahu thermodynamic tawaasunkiisii thermodynamiga ahaa ayuu gaari lahaa marka laakiin haddii weli aanu gaadhin waxaynu ognahay inaanu caalamkuna qadiim ahayn macnaha thermodynamic waxaa looga jeedaa de laba shay oo siman bay noqon lahaayeen kuway macnaha ma jireen maxay ahaydee iftiinkan cadceedda ka soo baxaya ama xidiguhu ma jireen waxaasoo dhan macnaha waa la waylaa buu ku leeyahay tusaale ka sii cad oo aynu ka soo qaadayno Barry Barker ayaa wuxuu ku leeyahay isagoo markaa qaanuunkan isaga laftirkiisu uu sharaxayo haddii caalamku uu noqon lahaa shay aan bilow lahayn oo abadi ah isku beddelka la isku beddelayo kulaylka wuu istaagi lahaa mana noqdeen mid sii socda lamana arkeen buu ku leeyahay ajsaam xaara ah ama waxyaabo kulul dhulka laguma arkeen oo cadceed lama arkeen oo xidiga lama arkeen shay qabowna lama arkeen sida maxay ahayd dayaxa oo kale marka mar haddaynu arkayno waxyaabo kulul iyo waxyaabo qabow oo adduunyada ka jira oo isku beddelaya maxay ahayd xaraaradii iyo kulaylkii isku beddelaya waxaynu arkaynaa in caalamku uu bilow leeyahay oo aanu ahayn shay weligii allihii jiri jiray markaa way haddaad tirahdo shay weligii allihii uu jiri jiray waxa laga bixi lahaa marxaladan tabaadulka marxaladan isku beddelka ee la isku beddelayo kulaylkii ee la isku beddelayo maxay ahayd shaygii kulaylay shaygii qabowga ay isku beddelayaan qabowgii kulaylkii isku beddelayaan lama arkeen marka mar haddaynu maanta arkayno cadceedii
mar haddaynu maanta arkayno xidigihii oo weli ifaya oo weli maxay ahayd dhexdooda kulayl uu ka jiro ila xidiguhu waxaanay energy ku soo saarayaan cadceeduna waa gubashadii gubanaysa heliumka iyo hydrogenka iyo waxyaabaha ka dhex dhacaya weeyaane haddii markaa wax qadiima uu ahaan lahaa waxaasoo dhan nafaad baa ku dhici lahaa way maran lahaayeen cadceeduna maanta waxaa la ogyahay in dee xilliga ay ilaa 4 bilyan oo sannadood ka hor ay aasaasantay iftiinkeedin iyo baxan ay baxaysa ama ay iftiimaysaana ilaa 4 bilyan oo kale uu sii jiri doono siday ku qiyaasayaan ilaa maalinka saddex xadkeeda waxaa ku gaayay marka waxa ay ku leeyihiin haddii uu jiro oo caalamku weligii allihii jiri lahaa oo qadiim ahaan lahaa xaraaradan maanta lama heleen shay qabowna lama heleen macnaa shay kulna ma jireen shay qabowna ma jireen sababtoo ah dee kulaylku wuxuu u gudbayaa qabowga marka labada shay waxay gaari lahaayeen xaalad tawaasuna oo ay isleeyihiin oo kulaylna aanu jirin qabowna aan jirin laakiin meel dhaxay isku iman lahaayeen laakiin mar haddii maanta kulaylna uu jiro qabowna uu jiro waxa aynu arkaynaa in xaalad tawaasun aan la gaarin haddaan xaalad qadiim uu caalamku noqon lahaana mar hore ayaa xaaladii isleekaanshaha iyo tawaasunka la gaari lahaa xaaladda tawaasunka waa mid la sugayo oo dee mawtul xaraarigaasi mar unba la gaari doona haddii laakiin caalamku qadiim noqon lahaa mar hore marxaladdaa la gaari lahaa oo aan la helin waayo haddaad iminka geed aad shido ama aad dhuxul shido dhuxultaasi way gubanaysaa damas bay noqonaysaa waa la waaye marka haddii cadceedan weligeedii allaheed ay jirtay ilay socon mayso enerjiga weligeedii allaheed haysan mayso saas u guban maysee mar hore ayaa iyadana la waayi lahaa iftiinkeeda iyo xaraaradeeda iyo kulaylkeeda marka intaa marka la isku soo ururo waxaa inooga soo baxaya saddexdaa qaacidaba oo maanta nooc musallama ku dhow in caalamku uu leeyahay barbilow inuu leeyahay maalin iyo xilli uu bilaabmay marka oo iyaga laftirkooda dee Bill Daviskaasi baa u cadday isaga laftirkiisa hawki kulli war haddii bal la isku waafaqo ama ay caddaataba in infijaarul cadiimkaasi uu yahay xaqiiqo cilmiyo jirta wax kastaana ay soo bilaabmeen energy iyo time iyo xilli wax kastaba ay bilaabmeen khaaliq abuuray baa laga maarmaan ama cid ka dambaysay baa laga maarmaan iyagii baa caddaysanaya marka waxa marka la isku soo ururiyo ay noqonaysaa saddexdaa qaacido markay isku soo geyno iyo afarteedna qaacido horta toddobadaas in mid kastaaba ay tilmaamayso in adduunyadu ay bilow leedahay haddii markaa ay caddaato in caalamku uu bilow leeyahayna waxa sahlan oo fudud oo aad u fudud in caalamku cid bilowda ay leedahay waayo qaacidada caqliga ee fidrada ah ee ilaahay bini aadamka ku abuuray ee badiihiga cid walba ay garanaysa waxa weeye likulli xaadithin laabudda lahu min muxdith shay kasta oo mar bilaabmay waxa uu leeyahay cid bilowda lagama yaabo shaygu markaa inuu sabab la'aan iska soo dhaco inuu sabab la'aan isagoo iska bilaabmo ama inuu isagoo isbilaabo markaa sidaas daraaddeed maadaama oo dhowrkaa qodob aynu hadda ka soo hadalnay oo ah adduunyada iyo bilowgeedii wixii hadda ka dambeeya waxaynu bilaabi doonaa insha allahu adilatu calaa wujuudillah adiladii markaa tilmaamaysay jiritaanka ilaahay oo iyaguna dhowr noqon doona insha allahu macrakadu ugu weynina waxay ka bilaabmaysaa un waa hadda qodobka aynu soo dhammaynay ahaa halilkowni bidaaya caalamku bilow ma leeyahy haddii macrakadaa markaa lagu soo kala adkaado way sahlan tahay waxa ka dambeeyo dhammin aad buu u fudud laba mushkiladood baa laga yaabaa ama laba su'aalood baa haddaba haddaynu sii badnay ilaa 3 su'aalood baa laga yaabaa inay keenaan mulxidiintu oo ah haddii la yidhaha adduunyadii waa la abuuray cid abuurtaa jirto adduunyadu bilow bay leedahay ayaa ilaahay abuuray waa su-aasha isweydiiyaan oo iyadana aan ka jawaabi doono ama qodobka labaad ay isweydiiyaan oo ah haddii lacag laba aan qirnaba adduunyada in la abuuray maxaa diidaya 2 iyo 3 iyo 4 iyo 5 ilaah inay jiraan oo heshiis ku ah in adduunyada bilaabaan ama adduunyadaba ay maamulaan taana iyadana waan ka jawaabi doonaa insha allahu shubha saddexaad oo inta badan aad ku arkayso kuwan Soomaalida ama xataa kuwa mulxidiinta ah waaweyn hadda imika iyagu ahwa ra'sul ilhaad kuwa hogaamiya oo in badan iyaguna isweydiiyaan oo ah maxay hayday qudrada ilaahay mutlaqba mise waa maxduud oo maxay hayday tusaalayaasha qaar ay keenaan iyaduna way jirtaa marka shaqabka ay ku kiciyaan jiritaanka ilaahay ama ay maxay hayday buuqa ay ku furaan oo saddexdaa qodob marka la isku soo ururiyo noqonaya iyagana insha Allah waxaan kaga jawaabi doonaa markaan mawduucan hadda aan ka gudubno xujooyinka jiritaanka ilaahay kadib ayagana saddexdaas su'aalood iyagana ka jawaabi doonaa insha Allah barnaamijkeena caawa intaas ka soo koobnaa insha Allah wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فتداركني بلطف منك يا مولى الموالي، يا كريم الوجه غثني قبل أن يفنى اصطباري. قد كفاني علم